dhammaadka maalmaha al-shabaab deegaanka Basre ee duleedka degmada Balcad kaasi uu ka soconayo dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidamada gaarka ah ee booliiska Haramcad iyo sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan shabaab dadka deegaanka Cada Kibir ee gobolka Galgaduud oo maalmo ka hor weeraro qaraxyo ah ay ka fuliyeen kooxda al-shabaab ayaa isku abaabulay hubkoodan u qaatay inay la dagaalamaan kooxdan diidan nolosha qof kasta oo muslim ah deegaanada ay ciidamada howlgalka ka sameeyeen ayaa waxa kamid ah Dabayoole Galgubadle hiilo banaan iyo Jicibow duulaanka ka dhanka ah maleeshiyada shabaab waa qodobka ugu weyn ee wararka warbaahintu ka tabinayso dalka shacabka Soomaaliyeed oo ka daalay daawashada dadkooda oo lagu xasuuqayo xoolihii iyaga laga qaaday dhagarta dhaca iyo baabi'inta isursuulinta u muuqda ee al-shabaab ku hayaan kuna tusaale qaatay dhacdooyinkii u dambeeyay ee deegaanada Afarirdood iyo Cada Kibir ayaa go'aansaday inay iska dul qaadaan arxalaawayaashan hadda marka wax noo bannaan oo inaan dirirna ahayn total ma harinba inayna dilaan inaan dilaan waxba ka dhaxaynba ayagaana dooray anagu ma aanan doorin deegaan dhan oo ballaaran oo 200 kiiloomitir isku wareegsan oo qof dirirayda joogin guriga gub ceelka gub astaanada khid shaqada waa weyn maaha in waxaas loo okortana diinta islaamka ee dadnimada badbaadada ka yihiin in la dhinta waa waajib muqaddas ah insha Allah waxa noo hantiya waxa haysataan diigiina iyo maalkiina waa noo xalaal jannaan idinka raadsanaynaa waa hubaal waxaan joognaa dhammaadka maalmihii cabsi gelinta argagixinta iyo gumaadka shacabka aan waxba galabsan waxa soo xirmay irdihii ku been abuurashada diinteena suuban iyo fulinta amarada aan raadka ku lahayn waxa awdmay albaabadii dhaca boobka iyo burburinta aan isla xisaabtanku ka dambeyn ee hantida dadkeena waxaana xarka goostay xoogaga xaqo dirir ah iskood isku abaabulay kana gaduuday gaboodfalada tira beelay ee al-shabaabka gobolkoodu sii dhacayo dhanka dawladda federaalka waxaa la eebiyay qorshaha qaran ee sugidda amniga dalka kaasi oo lagu xoreynayo deegaanada ay weli ku dhuumaaleystaan laguna xasilinayo kuwa dhawaan laga faramaroojiyay baritaarka halganka baraarug bulsho oo ay dadka Soomaaliyeed garowsadeen inay ku xoreeyaan dhulkooda ayaana saldhig u ah siyaasadda dawladda ee la dagaalanka argagixisada al-shabaab dhankooda talafara waa ka baxday waxaana u bilowday maalmo mugdi ah oo ay guranayaan mirihii ay beerteen ee tacadiga iyo gaboodfalka ka dhanka ah dadkeena iyaga oo haatan jihooyin badan ka wajahaya shacab careysan iyo ciidamo ka tira badan oo loo carbiyay ciribtirkooda waa hubaal Soomaaliya waa ay ka guuleysanaysaa cadawga gardarrada ku haya dalkeeda dadkeeda iyo diintoodaba dawladdeena ciidankeena iyo shacabkeenuba isdhiibi maayaan ilaa laga helayo dal Soomaaliyeed argagixisada ka caagan cadaalad iyo nabad ka jirto oo barwaaqaysan ilaahay idankiisa in yoolkaas aanu gaarna waxay u baahan tahay adkaysi nafuranimo geesinimo iyo ka go'naan waxaan bogaadinayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan sida dhiiran iyo geesinimada leh oo ay dagaalka ugu jiraan gaar ahaan waxaan bogaadinayaa ciidamada qalabka sida ay har iyo habeen ugu taagan yihiin la dagaalanka argagixisada waa dhab in la joogo dhammaadka maafiyada al-shabaab balse isweydiiyo muwaadin adigu kaalin ma ku leedahay taariikhdan qormaysa iyo halganka badbaadinta dalka dadka iyo diinta islaamka markii aad is xurayto waalidkaadu xurayto walaanyadaadu xurayto deegaankaadu xuraysata markaas raaxaysoy laakiin deegaanka la haysado awlaadyaada kiila dhaladan ama qabiilkooska haytaan la gadgadadahay la gumaadahay anina inta fadhi goraha keena haysada rasaasa haysada intaas ku fadhi magalnimo ma yarawidaaw